السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن مeel kasta joogtaan si walba ila socotaan walaalaha qaaliga ee ku xiran channelka salaan qaaliga hawada idin soo marinaya. Salaan kadib walaalaha qaaliga sida ogeedeen bariyahan inta dhaqankeena miyiga iyo wadankii uu ka roobsanayo waxaan isku ogeynaa in soo gudbiyo qayb kamid ah goboladeennii wadankeennii falogyo ku saabsan magaalooyin badan baan hore u soo marnay oo qaarkiin aad la socoteen. maanta waxaan idin wadaa magaalo la yiraahdo Huurshe oo dhacda galbeedka gobolka Galgaduud. waxayna markaa daris la tahay magaalooyinka Xeraale iyo Cabudwaaq oo hore aan u soo geliyay. intaan mawduuc barnaamijka hore u sii galno waxaan ka codsanayaa subscribe-ka inaad ii saartaan inta ugu cusub, like-tana markaad muuqaalka dhammaysataan aad igu amaal maridaan. intaa kadib magaca Huurshe waxa uu ku baxay magaaladu waxay ahayd Balli. dabcan magaalada waxay daris yihiin magaalada ka horeysay loo yaqaan Xeraale. kugu sheegay markaa in magaaladu ay Balli ay lahayd. Balli marka intaan fahmin waxa laga wadaa meelaha biyaha roobka ay isku yimaadaan. marka magaca Huurshe wuxuu ku baxay Huurshe waxay ahayd markii hore magaalada Huurshe meel Balli ah kadibna meel yar oo xogaa god ah oo dadku markay ka caabiyeen dadkii hore Ballidaas bay caabi jireen iyo ceelasha waxay dareemi jireen dabcan kuleyl. marka magaca Huurshe sidaas ayuu ku baxay. waxay marka magaaladu caanka ay ku ahayd taariikheeda waxa kamid ah waxa magaaladaas joogi jiray nin qaadi u ahaa Sayid Cabdulla Xasan waqtigiisii oo markaa lagu aqoon jiray ama lagu neynaasi jiray qaadigii Huurshe waqtigii markaa Sayid Cabdulla Xasan. inta kadib magaalada waxay kala caan ku tahay magaalada Huurshe magaalo culimada gobolka Galgaduud inta ugu badan ay cilmiga ka soo barteen gaar ahaan cilmiga diiniga ah. waxa jira sheekh loo yaqaan Sheekh Yuusuf Direed oo magaalada Huurshe ka bilaabay cilmigiisa ama in uu markaa kitaabada ka aqriyo qiyaas ahaan 1965 magaalada Huurshe kaliya ma ahayn gobolo badan buu cilmiga kitaabada ka soo aqri jiray oo ka soo bilaabay laakiin ugu dambeyntii saldhigiisu waxay noqotay magaalada Huurshe oo dad badan markaa ay halka cilmiga ka soo barteen. sidaan wada ognahay waqtiga hadda la joogo markaas si ka badan ayaa loo ixtiraami jiray ama loo qadari jiray culimadii hore oo dadka diinta soo bartay. sida maanta markaa cilmiga loo heli karana bariga hore ama maanta ay u wada fududahay in meel walba oo diinta iyo cilmiga laga baranayo umay fududeen. Soomaalida horena waxay aan runtii dad aad u ixtiraam jiray culimadooda walow hadaba la ixtiraamo laakiin maanta firqooyinkani waxaan meeni jirin. marka magaalada Huurshe waxay kala taariikhdeeda kamid ah Sheekh Yuusuf Allah u naxariisto in markaa uu saldhig u ahayd oo cilmi badan laga soo bartay halka isla markaana ugu dambeyntii 1980 ilaa 81 oo sheekha halka ku dhintay ku geeriyooday ilaa yoomil hada aan la hadlayna magaalada Huurshe sanad walba waxa isugu yimaada malaayiin qof oo isaga timaada dalka dibadiisa meel kasta sheekha siyaaradiisa iskugu timaada oo inta badan TV-yada ka daawanaa intii kale la socota markaas sheekha siyaaradiisa ama in la soo booqdo oo la yimaado halka iyadoo markaa loogu duceynayo. magaalada Huurshe sanadii sheegay waxa ka tirsantaa gobolka Galgaduud gaar ahaan dhanka galbeed waa magaalo sanadihii ugu dambeeyay kamid ahayd magaalooyinkii soo kabcay soo koriyay. xilliga anagu marka aan tagnay horta waxay ahayd xilli Jimcaha sidoo kalena waxay ahayd xilli ayna noo suurta gelin dadkii markaa magaalada macquulka ah ee wareysan lahayn. halkaan idin muuqatana waa MCH-ka magaalada Huurshe. ma sha Allah kulay magaalo walba haday mar ay leedahay iskool iyo meel markaa MCH caafimaadka ah caafimaadka waxbarashada waxba asaasiga number 1 ka ah bay kamid tahay nolosha iyo biyaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyihii intaas magaalooyinka haday ay haystaan ma sha Allah magaalada intaas haysata waxa la dhihi karaa nolosheedu waa magaalo ay wax badan u dhameystiran wixii ka dhimanna bulshadeeda insha Allah u dhameystiri doonta iyo waliba maamulkeeda. magaaladu waxay leedahay iskuul ay leedahay iskuulka waxa la yiraahdaa iskuulka Sheekh Yuusuf waa iskuulka ugu weyn magaalada Huurshe. ما شاء الله wadinka u jeeda gabdhii sidaas ay u xijaaban yihiin xijaabka wax ugu soo baranayaan waxa aad wax loogu farxaa ah wadanka marka ay tagtid tuulo degmo ilaa iyo meel kasta oo maanta ay ku taalo 4 guri ay ku taalo in hadana iskool uu ku yaalo waxaan dhihi karaa runaantii oo waxyaabaha horumarka wadankeena ah waayo dadka inta badan waxay soo fahmeen waxbarashada gaar ahaan waxa aad loogu sii farxaa ah gabdhaha iskool walba oo ku yaalo goboladii ha ahaado degmo ama tuulo ha ahaato waxa arkaysa in gabdha ay dhiganayaan waayo bariyi hore gabdhaha wax lama bari jirin gaar ahaan dadka gobolada ama tuulooyinka yaryar jooga may bari jirin. marka ma sha Allah ilmaha marka idin muuqda aad u jeedaan sida u badan yihiin magaalada kaliya ma wada joogaan ama magaalada kaliya ma wada degana reerahooda ma degana
waxaa ku jira qaar miyiga degan oo reerahooda ay miyiga degan yihiin oo markaa waxbarashadii loo keenay waxyaabaha maasha allah reer miyiga horumarka ay gaareen kamid ah waxaa dhihi karaa in ayaga laftigooda ay fahmeen waxbarashada qiimaheeda waayo xoolaha sida loo daba taagnaa ama waqtiga loogu luminayo dee xoolihii abaar baa iska dhamaynaysa laakiin dadkii reer miyiga waxay ogaadeen maalintii reerku marka ay 10 cunug u joogto in markaa 5 kamida ama ugu yaraan 3 kamida magaalo la geeniyo oo tuulada markaa u dhow ama magaalada markaa dadka u joogaan ilmihii la geenay kadibna ay wax ka baranayaan maasha allah waxaan dhihi lahaa runaantii dhalinyarada maanta hadda halka aan kaga muuqata iyo kuwa kale oo daawanaya hadeer oo maanta iyaguba wax soo bartay waxbarashada marka aad barataan inaad wadankiina dib ugu celisaan sababtoo ah marka tagtid meelaha qaar sida hadda magaalooyinkan oo kale ama tuulooyinka ama degmooyinka waxay ku sheegayaan macallin yari xitaa inay jirto marka dhalinyarada hadda inta idin wada muuqata maanta marka ay dugsi sare ka wada baxaan waxa la wada tagayaa caasimadii baa jaamacad loo aadaya ama wadanka dibadiisa qof walba intuu awoodo kadibna maxaa dhacaysa tusaale hadda magaalada Huurshe ayaa idin muuqata intaasoo arday markay ka soo baxdo sida u badan yihiin waxa laga yaabaa mid walba wuxuu ku takhasusaya inuu magaaladiisa kula soo laabay yani Huurshe oo kaliya ma laakiin waa tusaale qof walba tuulo ka yimid qof walba magaalo gaar ah wuxuu ku soo bartay uu ka soo jeedaa dadkiisana marka ay degan yihiin waxa marka wanaagsan dhalinyaradana in aan ku dhiirigelin lahaa qof walba waxa soo baratay deegaankaaga baahi baa ka jirta hadda dhakhtar soo baratay caafimaad soo baratay deegaankaagi geey wuxuun u qabo waqti sanada qaar tago kaga soo faa'iiday oo u fadhiiso waayo inta ugu badan magaalooyinka caasimadaha ay dadku caafimaad u soo aadaan waxa kale kamid ah dhalinyaradan ku dhiirigelinaya maanta meel kasto dhowr guri ku taala iskuul baa ku yaala waa ilaahay mahadis laakiin in marka dadka reemigana loo tago oo marka meeshii ay reemigu deganeen geedihii inta iskuul laga dhiso waayo mar walba iskuulku hadii la guri baa la dhisay reemigu way guuraan laakiin iskuul guuraya in loo sameeyo oo marka dhalinyaro waxa weeye dad walba dadkooda wuxuu qabtaa dadkii reemiga aqabada haysta waxay tahay waxbarasho la'aan waxbarashadii tuuladii way ka helayaan laakiin ilmaha waalidkii markuu la nooleen dhibaato badan iyo aqabado badan baa soo wajahaya waxa weeye hadii xitaa gabdhaha kale marka laga hadlo aqabado badan baa iskaga yimaada oo gurigoodii qof walba ku qanacsan yahay marka halkaana hal geeyo marka ma sha Allah reer Huurshe wadinka u jeeda ma sha Allah waxbarashadooda meel wanaagsan bay maraysaa waana gobolada dhan waxaan leeyahay halka ka sii wada halkana waa garoonka magaalada Huurshe ma sha Allah runaantii aad baan u farxaa markaan arko dhalinyaro dhulkooda ku ciyaaraya si xornimo leh waana wax runtii wiil walba ay daawanaya aad ugu farxi karo marka uu deegaankiisii uu joogo u xor yahay ku ciyaarayo inta kale qurbaha joogta ayaa xanuunka dareemaya dhulkeena hooyo waxaan leenahay ilaahay hanooga dhigo mid nabada oo horumar leh marka sidaan idin sheegay waa magaalada Huurshe waa magaaladii culumada gobolka Galgaduud waa magaalada halka dad badan ay qaarkood i daawad doonaan qaarkood ay garanayaan laf dhabar u ahayd halkii diinta laga soo faafiyay ama diinta laga soo bartay markii la dhaho gobolka Galgaduud insha Allah balanteena waxay noo noqon doontaa waqtiga roob la dago inaan halkaan kugu soo gudbi doono saan idin sheegaba hadday noqon lahayd faloogyada gobolada iyo hadday noqon lahayd dhaqankeena miyiga aan aad u jecelnahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala bisha ramadaan nabad ha nagu gaarsiiyo bishii ramadaan baa soo dhow waxaan leenahay ilaahay nabad iyo barwaaqo bashbash ha nagu gaarsiiyo sidoo kale u soo duceeyo dadkan reemiga ah xaalad waxay ku jiraan alxamdulillah abaar ma jirto laakiin sidaan wada ognahay inta badan gobolada waxa lagu wada jiraa waqti jidaal kala dambeedka waqtiga loo yaqaan inta reemiga ayaa fahmaya waa xaaladii ugu dambeysay in ilaahay roob qeyr qaba ay u keeno ay ku soomaan qeyr badan baa idin rajeynaya walaalaha qaaliga insha Allah biidnillah subscribe ka saara like tan ay saara tani inta ku kulmi doona mawduuciga sidaas iyo nabadgelyo